kulankan socodka ah oo loogu magac daray Open Street ayaa maanta si tijaabo ah uga qabsoomay xaafadda Soomaalidu degto ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. kulankani ayaa macnihiisu yahay mid lagu doonayo isdhexgal bulsho laguna iftiiminayo in Soomaalidu ay tahay dad ku wanaagsan isdhexgalka bulshada. qadar daqiiqada kadib ayaa isxudwarsi iyo wixii soo kordhay inta la socday la isweydiinayay. horjoogayaasha jaaliyadda ayaa hormuud ka ahaa kulanka socodka ah ee lagu barayay jidadka xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. leedahay waxa weeyaan dadka aan la deganahay waa ajnabiga ama dadka magaalada degan way kala duwan yihiin. anaga Soomaalidu waxaan san magaalada anaga leeyahay anaga magaalada Maliina qeyban kana dad kala badan magaalada la degan oo naga duwan. dadka qaar waxay aaminsan yihiin sida dadka waaweyn oo da'da oo guryaha xagga degan waxay aaminsan yihiin xitaa banaanka ay soo baxaan in la cunayo ama la dilayo aaminsan waxyaalaha noocaas oo kale fikradda meesha laga saaro oo bulshada inay wadanka wada degan tahay wada leedahay cid walbana ay diinteeda dhaqankeeda gooni u yahay oo cid macnaha duulaanku ama nacayb ama dhibaato ku haysa ay jirin in bulshada laga dhaadhiciyay rabo. dadka qaar oo cadcad waxay naga aaminsan yihiin magaalada aan deganahay meel qurunta inay tahay oo dhibaato badan ay ka jirto oo la tagi karin waxba laga gadan karin xitaa aaminsan yihiin fikirkaas oo kale in meesha laga saaro rabo. majgamaha galaan wax ka gataan maqaayadaha galaan wax ka cunaan internet isticmaalaan koofiyada ay gataan rabo. gudoomiyaha ururka Sora ayaa warbaahinta u sharaxay muhiimadda uu leeyahay socodkani lagu barayay jidadka xaafadaasi. Open Street Day oo maalinta jidka furan macnaheedu waxa waaye waa jidadka oo laga xiro baabuurta inta laga celiyo dadyooga lagu soo sii daayo si ma garanaysaa barnaamijyo programmo kala duwan lagu qabto ay lagu ciyaaro la isku barto ciyaaro kala duwan meesha lagu soo bandhigo isla markaana ganacsiyada inta la furo maqaayadaha la camiro meelaha cafeteriada la camiro dadku wada sheekaystaan isbartaan lana isweydiiyo dadku magaranaysa isku soo dhawaadaan halkii dadku ay kala baqayeen. haweeneyda hormuudka ka ahayd barnaamijkani ayaa ammaan u jeedisay Soomaalidii kala qayb gashay kulankaasi. Which is the first step to reimagine their streets. Today we've been walking with some members of the Somali community and there's a real wealth of ideas and energy. So the next step is to talk a little bit more, get a sense of what's possible and then start planning open streets. waa markii ugu horeysay ee dalkani Koonfur Afrika lagu qabto kulan caynkana ayadoo bisha soo socoto lagu wado in la qabto barnaamij weyn oo ay ka soo qayb gali doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool dalkani Koonfur Afrika. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.